Ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee loo yaqaan SMEs-ka waa laf-dhabarka iyo mashiinka dhaqaajiya dhaqaalaha Soomaaliya. Haddaba, maxaa go'aamiya in ganacsigu sii jiro, kobco, una adkaysto isbeddelka qalafsan ee suuqa? Ma maalgelin baa? Ma maamul wanaag baa? Mise waa la qabsiga tiknoolajiyadda maaliyadeed ee fintech? Maanta waxaan si qoto dheer leh u falanqayn doonaa daraasad cilmiyeed baaraysay saameynta fintech-ka uu ku leeyahay jiritaanka ama waaridda ganacsiyada yaryar ee ku yaalla Muqdisho. Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, waxay safka hore kaga jirtaa kor u kaca adeegyada maaliyadda ee dhijitaalka ah ee gobolka. Lacagaha mobile money-ga, lacag dirista tiknoolajiga ah, iyo bangiyada casriga ah ayaa waxay noqdeen laf-dhabarka dhaqaalaha. Hase yeeshee, su'aasha xubinta u ah doodan ayaa ah: ma ku filan tahay tiknoolajiyadda in la helo oo keliya, mise waxaa loo baahan yahay in la fahmo saameynta ay ku leedahay waaritaanka ee ganacsiga? Daraasaddani waxay si toos ah u baartay 3 tiir oo iskaabaya. 1. Saameynta tooska ah ee fintech-ka. 2. Doorka ka qaybgalka maaliyadeed financial inclusion. 3. Doorka aqoonta maaliyadeed ama financial literacy. Daraasaddani waxay raacday hab tiro-koobka ee loo yaqaano quantitative method. Xogtana waxaa laga soo ururiyey muunad gaaraysa 384 qof oo leh ganacsiyo yar iyo kuwa dhexe ee ku yaalla degmooyinka Muqdisho. Waxaana daraasaddani sameeyey Maxamed Cabdi Cilmi iyo asxaabtiisa. Falanqaynta xogta waxaa lagu sameeyey habka casriga ah ee loo yaqaano Structural Equation Modeling ama SAM. Habkani oo inoo oggolaanaya ama noo suurtagelinaya inaan si awood leh u baarno: 1. Saameynta tooska ah direct effect, taasoo lagu baaray xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya fintech iyo jiritaanka ganacsiyada. Tan labaad oo ah saameynta dhexdhexaadinta ambidextrous effects, sidee aqoonta iyo helitaanka adeegyadu ay u xoojiyaan saameynta fintech-ka. Natiijooyin ka soo baxay daraasaddani waxay sheegeen: 1. Fintech-ka iyo waxa ka dhexeeya saameynta jiritaanka ama waarista ganacsiga. Ganacsiyada adeegsada ama hirgeliya nidaamyada online-ka ah sida lacag bixinta mobilka, xawaaladaha online-ka ah, iyo isticmaalka xisaabaadka dhijitaalka ah waxay muujiyeen adkaysi adag iyo jiritaanka ganacsigaas. Taasi waxay ka dhigan tahay in fintech-ku keliya uusan ahayn adeeg fududeeya maaliyadda, balse uu yahay istiraatiijiyad badbaado ee ganacsiga. 2. Ka qaybgalka maaliyadeed. Marka ganacsaduhu uu helo marin uu ku gaari karo adeegyada maaliyadeed sida deynta, kaydka, iyo caymiska, ganacsaduhu wuxuu awood u yeeshaa inuu maareeyo khataraha. Fintech-ku wuxuu dumay caqabadihii hortaagnaa adeegyadaasi, taas oo kordhisay xasilloonida ganacsiga. Daraasaddu sidoo kale waxay soo saartay aqoonta maaliyadeed financial literacy. Tani waa furaha guusha. Aqoonta maareynta lacagta iyo fahamka khataraha maaliyadeed ayaa ah waxa kala saaraya ganacsiyada. Ganacsade haysta tiknoolajiyad balse aanan lahayn aqoon maaliyadeed kama faa'iidaysan karo fursadaha ay bixiso fintech-ka. Haddii aan si qoto dheer u eegno natiijooyinkani, waxaan arkaynaa nidaam isku xiran. Fintech-ku waa aalad, financial inclusion-kana waa marin, halka financial literacy-gu uu yahay awood hagid. Marka saddexdan la isku helo, ganacsigu wuxuu helaa
waarid dhab ah, balse midkood hadduu maqnaado nidaamku wuu daciifaa. Tusaale ahaan, ganacsi adeegsada mobile payment balse aan aqoon u lahayn maaraynta wareegga cash flow wuxuu weli khatar ugu jiraa burbur. Gabagabadii, fintechku waa mashiin cusub oo kaxeeya ganacsiyada yaryar ee Muqdisho, balse si mashiinka uu u sii shaqeeyo waxaa lagama maarmaan ah in la helo saaxiibtinimo maaliyadeed iyo aqoon qoto dheer. Haddii Soomaaliya ay hiigsanayso kobac dhaqaale ee waara, waa in la isku xidhaa tiknoolajiyadda casriga ah iyo aqoonta ganacsiga. Haddii aad tahay ganacsade, hogaamiye maaliyadeed ama xog baare, bal isweydii, ma isku dheelitiran tahay tiknoolajiyadda aan isticmaalno iyo aqoonta aan u leenahay maaraynta maaliyadda?